ciidamada saldhigga dhexe ayaa xalay xabsiga dhigay samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon kadib markii ay ciidamadu ka soo qafaasheen hoyga uu ka degan yahay magaaladaasi Burco taasoo ay u geysteen jirdil wariye Coldoon laguma hayo faldambiyeed laakiin waxaa loo aanaynayaa inuu marar badan tagay Muqdisho iyo warar uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga saaka waxaa lagu warbaristay mudaharaadyo ka soconaya wadooyinka halbowlaha oo ah magaaladaasi Burco dadka mudaharaadka dhigayay ayaa waxay ku dhawaaqayeen halkudhigyo ay ka mid yihiin Fariic Coldoon waxa uu baahan yahay cadaalad iyo erayo kala badan mudaharaadka ayaa saameyn weyn ku yeeshay wadooyinka isu socodka gaadiidka iyo waliba xaaladda guud ee magaaladaasi bulshada Soomaaliland isagoo loo geystay cadaalad darro aan geedna loogu soo gaban waxaanu leenahay rag xarig ma geeyo rag cadaalad waaya sida cawsha kala yaac waxaanu leenahay Cabdimaalik cadaalad buu baahan yahay mudaharaadka waxaan u qabanaa samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon waxaan dowladda Soomaaliland ugu baaqanaa inay Cabdimaalik Muuse Coldoon xorriyadiisa u soo celiso Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon gobolka Togdheer dowladda Soomaaliland ugu leex jecel badan yahay war ma sida ahayn Coldoon gobolka Togdheer intuu gashay Soomaaliland ma gelin Cabdimaalik Muuse Coldoon cadaalad buu rabaa Cabdimaalik Muuse Coldoon biriishkaas laga qabsado sida tuugta loo afqaashay waxaanu dalbanaa in Cabdimaalik Muuse Coldoon sida ugu dhaqso badan loo soo daayo gobolkiisa loo soo daayo Cabdimaalik Muuse Coldoon hadduu cadaalad heli waayo dhalinyaradu waxay ku dhaqaaqaysaa xorriyadiisa ku heli karo cadaalad baynu rabnaa cadaalad baynu doonaynaa xukuumadda Soomaaliya waxaanu leenahay Coldoon waa samafale ummadiisu u shaqeeya Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddii ka horeysay waxay shaqo ka dhigteen xidhidda wariyaasha xaqiiqda dhabta wajahaya wariyaal tiro badan ayaa ka huleelay wadankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland halka qaar kalena ay ku daba jiraan maaha markii u horeysay ee la xidhiyo wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon balse waxaa jirtay marar hore oo waxba lagu waayay Maxamed Yuusuf Cabdilaahi Maxamed Wardi Somali Cable TV Burco